بسم الله. maanta way taariikhdu tahay 13 bisha November 2025 ama 14 bisha saddexaad 2018 waxaan rabnay inaan fariin u gudbino bulshooyinka ku dhaqan gobolka Doolo maamulka magaalada Wardheer iyo nawaaxigeeda fariintaas oo ah in taariikhdu markay tahay 15 bisha 11 ama 16 bisha saddexaad ee tirska taariikhda dalkeena inuu bilaaban doono ololaha indhafiiqida bilaashka ah taasoo ka bilaaban doonto hoostaga guud ee magaalada Wardheer barnaamijkan oo iska kaashadeen xafiiska caafimaadka hoostaalka Wardheer iyo muwaadiniin mutadawiciin ah oo ugu deeqay bulshada inay uga faa'iideeyaan campaign indhafiiqista haddaba bulshada waxaan ku wargelinaynaa in ay bilaabatay diiwaangelinta loogana faa'iideeyo cid kaste oo la dhiban aragga isla markaana ay ku soo hagaagi karaan waaxda indhaha hoostaalka kaasoo at any time xilli kaste loo diyaar yahay in diiwaangelinta laga qabto isla markaana wixii nidaam la mariyo haddaba bulshada waxaan ugu baaqaynaa in laga faa'iideysto fursaddan oo ah fursad naadira in la helo isla markaana looga faa'iideyn doono bulsho tiro badan oo la dhibaataysan aragga insha Allah faa'iidada bulshadu leeyahay waxa weeye si guud waa campaign marka campaign la dhahana uu ka duwan yahay adeegii sida routiinka ugu socday xarumaha caafimaadka waa adeeg la rabo ama campaign la rabo in looga faa'iideeyo tiro badan oo dad ah oo la dhiban aragga faa'iidadu leeyahay waxa weeye dad badan oo waayay kharash ay ku tagaan xarumaha caafimaadka isla markaana ay ama qalliin ku maraan ama daweyn ku maraan fursad loogu keeno gurigooda oo bilaash ah isla markaana loo sameynayo wax kasta oo qalliin ah iyo daweynba weeye marka fursad ahmeed aad u weyn buu leeyahay bulshada fariinta ugu dambaysa waxa weeye bulshadu inay uga faa'iideyso cid kaste oo la dhiban aragga isla markaana la iska soo diiwaangeliyo waaxda indhaha ee hoostaalka taasoo mar horeba la bilaabay diiwaangelinta adeeguna wuxuu si rasmi u bilaaban doonaa insha Allah maalinta Talaadada inuu soo socdo